waxa uu ku saabsan yahay tababarkan iyo waxa la rabo in la sameeyo tababarka horta marka ugu horeysa wuxuu ku saabsan yahay in la helo iswareysi guud oo dhexmara degmooyinka waana tababar degmooyinka dhan ay wada mari doonaan waxaana laga helayaa warbixin ah in ugu yaraan qofkii wax fiican sameeyeyna waxa fiican laga faa'iido qofkii wax fiican degmadiisa markaas aysan ka jirin ama dhinaca warbixintu ay liidato in uu uga daydo waayo wax kasta oo la sameynayo ku dayashay leeyihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam meeshan ummadda loo soo diray sallallahu alayhi wasallam waxaa la yidhi micnaha wuxuu idin yahay ku dayasho marka ku dayashadaasaa laga rabaa qofkii wanaag sameeyo qofkii aan wanaagiisi wax ka dhiman yahayna uu soo dadaalo wax kasta dadaalaa lagu helaa wax qof aanan dadaalin waxba ma helayo marka waxaan rabnaa inaan kala faa'iidno muhiimadda ugu weyn waxaa waaye markaan usu imaano inaan wax kala faa'iidno haddaan inta usu imaano wax kala faa'iidi weyno macnaha meeshaas waxaa waaye waa wax wanaagsan kama dhicin waaye marka horta tababarka waxaa waaye kow wax in la kala faa'iido laba waxaa waaye in la isbarto oo berri kamaan degmada haddaan imaano aadna taqaanaan haddaan noo imaataan oo gobolka iyo xafiisyada noogu imaataan annagana aan idin naqaano midda saddexaad waxaa waaye in la kala helaa xog ku saabsan gobolka waxa uu idinku idin matalaa gobolka xafiiska meeshan ku yaala dadkii uu matalayay dadkan waaye warbixinta xagga xafiiska laga sheego waa inay tahay wax waaqica ah oo ka jiro degmada la sheegayo laakiin haddaadan waxaan aan jirin laydinka qoro oo buuganta lasoo qaato la yidhaahdo degmada intaasoo qashina la dhigaa MCH-keeda halkaas ku yaala isbitaalkeeda halkaas ku yaala saldhigga booliska halkaas ku yaala oo sawir laga sameeyo oo sawirkii aad idinka qayb ka ahayn oo warbixintii idinka aad qayb ka ahayn oo wixii idinka aad sheegteen wax aanan ahayn la qoro daas waxa waaye waa wax oo contradiction isku sameynaa way iska hor imaanayaan isma dabooli karaan marka waxaa la rabaa hay-adaha gobolka imaanayo shakhsiyaadka gobolka imaanayo in laydin soo gudbiyo oo idinka laydin dhex keeno oo su-aalaha idinka uga jawaabtaan oo idinka warbixinta aad siisaan oo idinka aad la hadashaan waa sida saxda ah ee la rabo in loo wada shaqeeyo barnaamijka horta intaasuu ku saabsan yahay hadda idinkaa imaaday wejiga labaad waa laydiin imaan doonaa marka laydiin imaado tiima imaanayo waxay sameynayaan mappingkaas waxaa waaye halkan jidaa maro infrastructure waaye dhismahan jidaa ka socdo meeshaan isbitaalkii waaye soo degmada hadhow dhalada markii laga soo bandhigo waa in la garan karaa inta jida ku taallo inta MCH ku taallo inta hospitaal ee ku taallo inta police station ee ku taallo hadhow markii la zoom gareeyo la soo gaabiyo adi halka markaa fadhiso haddii degmadii aad ka tirsan tahay arrimaha bulshada ku xigeen aad tahay ama dhalinyarada aad ka socoto haddii lagu yiraahdo degmada xagee qashin la dhigaa marka la soo gaabiyo oo saas loo soo zoom gareeyo waa inaad dhahdaa halkan iyo halkan iyo halkaan qashin ka dhigaa wadadan wada hebel la dhahaa halkaasaa la yiraahdaa qofku waa in uu yahay mas-uuliyaddu waa warbixin qofku waa inuu war haayo waaye marka intaas horta la rabaa in oo laydinkugu waco waxa waaye haddii la sameeyo maabinkaas waa inaad qayb ka tahay noloshu waxa waaye qofka bini aadamka meesha uu ku nool yahay bulshada uu la nool yahay inuu qayb ka noqdo waa in uu ogaadaa meeshan uu ku nool yahay inuu qayb uu ka yahay waana ognahay dhib badanaa jiro laakiin intiinaan dhan hadda markii aad magacyadiina iyo aad sheegteen tahay talada aad ku fadhisaan dhammaantiin dad riski ku jiro oo ummaddan inay u shaqeeyaan halis u galayaatiin oo wada tahay tala haysto laakiin waa in berri ka maalin wax lagaa faa'iiday inaa oga tagto waay dadkan marka dadkiina way isu wada imaadeen yar iyo weyn hadda maanta haddii oo la xisaabiyo ani iyo agaasimaha oo dhagaca daada isla agaasimo ah waxaana laga yaabaa in farqi weyn uu noo dhexeeyo ana marka waxaan ku qasbanahay meel kasta oon tagaayo inaan odayga uga dambeeyo asagana warbixin una siiyo midii hore ha ahaato ama midda dambe ha ahaato idinkan inaan annaga naga faa'iidaan idinkan annaga idinka faa'iidna bulsho ahaan bulshada sida la rabo in loo shaqeeyo saas waaye marka tababarkan waa inaad idinkan wax ka faa'iidaan idinkan wax laydinka faa'iido haddii degmada shibis halkaa lasoo dhigo oo la sharaxo degmooyinka kale oo meesha joogo waa in ay ka faa'iidaan degmadaas tusaale ahaan degmada shibis waxyaabaha ay samaysay oo aad uga baahan tahay inaad inta meeshaan ka qaado aad degmadaada aad geyso maxaa uga baahan tahay hadday wacyigelin tahay hadday tusaaleyn tahay hadday wax sheegis tahay marka waxaan aa qaadanay inaad bulshadaada kula laabato meeshaas aad geyso waa wax in la kala bartaa leenin waay adduunku waa wax kala barasho wax ka faa'iidaysan ma jirto wax barasho aqoonta ayadaa janno lagu galaa naarna lagu galaa
ayadaa janno lagu galaa haddaa barata jannay ku geynaysaa haddii wixii aa barataa ummadda u sheegi weysan aakhar waa lagu weydiina waa lagula xisaabtamaya naara ku gelaysaa marka waxaan rabnaa inaan isbaranno kala faa'iidno wax maanta keliya aysan noqonin oo markaan isu soo laabana nafteeda ay noqoto warbixintii aan qaadnay aan idiin sheegnay iyo idinka middaa qaadeen mid combined ah oo isla shaqaynayso bulshadana ay ka faa'iido waa mahadsantihiin